السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داودyaal kusoo dhawaada warkii ciyaaraha Bulsho Sports TV. qodobada idinkaga hayo waxaa kamid ah Jules Kounde ayaa isha ku haya kooxaha Man United iyo Chelsea. Grealish ayaa ka fiirsanaya heshiiska Man City. Juventus ayaa loo soo bandhigay qiimaha Gabriel Jesus. Paradise ayaa yiri Lionel Messi oo ku biiro PSG wariyo. Barcelona ayaa isku diyaarinaysa dalabka Sanchez. Chelsea ayaa sii xoojinaysa dalabka Coman. Juventus ayaa u dhaqaaqday saxiixa Pjanic. intaas waxay ahaayeen qodobadii wararka ciyaaraha haatan ku soo dhawaad isagoo faahfaahsan. Jules Kounde ayaa isha ku haya kooxaha Man United iyo Chelsea. لاعبka ka tirsan kooxda Sevilla Jules Kounde ayaa isha ku haya inuu dhageysto dalabyada kooxaha Chelsea iyo Manchester United. wargeyska AS ayaa sheegaya haddii uu difaaca reer France uu doonayo inuu u dhaqaaqo horyaalka Premier League wuxuu dooran doonaa inuu u dhaqaaqo kooxda Chelsea. Jules Kounde wuxuu go'aansaday inuu kaliya ugu tago Sevilla sababo sport xilli ciyaareedkan. 22 jirkan ayaa cadeeyay inuu bandhigiisa kubadda cagta ku soo muujin karo kooxda uu shaabada saartay sida Chelsea. balse Manchester United ayaa doonaysa inay saxiixa laacibkan kaga guuleysato kooxaha ay ku xifaaltamaan horyaalka Premier League ee Chelsea iyo Spurs. Jules Kounde Grealish ayaa ka fiirsanaya heshiiska Manchester City. Faafahintan warkan waxa inoo Ismaano Ismaan Cali. ciyaaryahanka qadka dhexe Aston Villa Jack Grealish ayaa la sheegayaa inuu ka fiirsanayo heshiiska 100 milyan oo gani uu ugu dhaqaaqayo kooxda Manchester City. kooxda haysata horyaalka Premier League ayaa la sheegayaa inay aad u daneynayso inay soo xirgeliso Jack Grealish xagaagan. kooxda Aston Villa ma rabto inay lumiso kabtankooda Grealish waxaana la furatay wadahadalo ku saabsan qandaraaska cusub. Manchester City ayaa dhawaanahan ku dul meereysanaysa laacibka sidii ay kaga dhaadhicin lahayd inuu u aqbalo heshiiska Manchester City laakiin maysan ka quusanin dalabka xidigan. Juventus ayaa loo soo bandhigay qiimaha Gabriel Jesus. Faafahintan warkan waxa inoo ah Xuseen Cumar Xuseen. kooxda ka dhis horyaalka Talyaaniga ee Juventus ayaa la sheegayaa inay u bixi doonto saxiixa weeraryahanka Manchester City ee Gabriel Jesus. Yanga Neri ayaa u aqoonsatay 24 jirkan inuu yahay bartilmaameedka koobaad laakiin waxay Manchester United ay ka dalbanaysaa adduun dhan 50 milyan dalabka Jesus. Gabriel Jesus ayaa qandaraaskiisa Etihad Stadium kaga harsan 2 sano oo kaliya. wuxuu kooxdiisa u dhaliyay 9 gool 29 kulan uu u saftay Premier League xilli ciyaareedkii hore. Paradise ayaa yiri Lionel Messi oo ku biira PSG wariyo. Faafahintan warkan waxa inoo Ismaano Ismaan Cali. Lionel Messi ayaa ka nixiyay adduunka oo dhan markii uu gudbiyay codsi rasmi ah xilli ciyaareedkii la soo dhaafay inkastoo ugu dambeyntii si joog ah garoonka Camp Nou sanadkii ugu dambeeyay ee qandaraaskiisa. PSG ayaa loo arkaa inay tahay kooxda ugu macquulsan ee 34 jirkan kaasoo xilligan ah wakiil xor ah laakiin go'al ayaa ogaatay in Barcelona ay heshiis la gaartay Lionel Messi. PSG ma xusin rabitaankeeda Messi iyadoo madaxweynaha kooxda PSG Nasser Al-Khalifi iyo agaasimaha Sporting Leonardo ayaa labaduba si cad ah u xaqiijiyeen xiisahooda Lionel Messi sanadkan. laacibkii hore ee Barcelona Neymar ayaa sidoo kale soo dhaweeyay rajada laga qabo inuu la midoobo saaxiibkiisii hore ee Lionel Messi halka Paradise uu sheegay inuu kooxda PSG ay ku soo dhaweyn doonto gacmo furan. Barcelona ayaa isku diyaarinaysa dalabka Sanchez. Chelsea ayaa diyaar u ah inay ku darto Hudson Odoi heshiis kasta oo macquul ah ay kula soo wareegayso laacibka kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman. Chelsea ayaa jeclaan lahayd inay kala xaajootay heshiiska ciyaaryahanka Bayern si ay u sameeyaan saxiixa macquulka ah ee Coman. laacibka reer England ee Hudson Odoi ayaa ku jira qorshaha macalinka Chelsea ee Thomas Tuchel xilli ciyaareedka cusub. Thomas Tuchel ayaa muddo dheer jeclaa Kingsley Coman kaasoo kooxda Bayern ee ku qiimeysay adduun 90 milyan xilli ciyaareedkan. Chelsea ayaa sii xoojinaysa dalabka Coman. Faafahintan warkan waxa inoo Ismaano Ismaan Cali. Chelsea ayaa diyaar u ah inay ku darto Hudson Odoi heshiis kasta oo macquul ah ay kula soo wareegayso laacibka kooxda Bayern Munich ee Kingsley Coman. Chelsea ayaa jeclaan lahayd inay kala xaajootay heshiiska ciyaaryahanka Bayern si ay u sameeyaan saxiixa macquulka ah ee Coman. laacibka reer England ee Hudson Odoi ayaa ku jira qorshaha macalinka Chelsea ee Thomas Tuchel xilli ciyaareedka cusub. Thomas Tuchel ayaa muddo dheer jeclaa Kingsley Coman kaasoo kooxda Bayern ee ku qiimeysay adduun 90 milyan xilli ciyaareedkan. Juventus ayaa u dhaqaaqday saxiixa Pjanic. Faafahintan warkan waxa inoo Ismaano Ismaan Cali.
kooxda Juventus ayaa xiiseynaysa inay dib ula soo saxiixato ciyaaryahanka kooxda Barcelona ee Pjanic sida ay qortay Mundo Deportivo. Pjanic ayaa ku soo biiray Barcelona sanadkii 2020kii heshiis isdhaafsi ah, laakiin ciyaaryahanka reer Bosnia ayaa ku adkaystay xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee garoonka Camp Nou. Blaugrana ayaa diyaar ah in ay iska dirto Pjanic maadaama ay dalbanayaan in ay yareeyaan mushaarkooda, laakiin Juventus ma ahan kooxda kaliya ee xiiseynaysa laacibka khibradda badan ee Pjanic, kaasoo sidoo kale la xiriirinaya kooxda ka dhisan Premier League ee Chelsea. intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa wararkani ciyaaraha Bulsho Sports TV. Waan Qamar Maxamed Cumar, sidaas iyo nabadgelyo.